Assalaamu calaykum. Ugu horreyn ma jiraan adduunkan wax sugan ee isbeddel joogta ayaynu ku jirnaa mar walba. Sidaa darteed waxaa loo baahan yahay sidii loola qabsan lahaa isbeddeladaas uuna qofka si joogta ah isu horumarin lahaa si uusan ugu harin tareenka nolosha. Waxaa kaloo jirta baahi joogta oo dhinaca xirfadda iyo macluumaadka intaba. Qof kastana waxa uu u baahan yahay si joogta ah inuu u baadigoobo macluumaadkaas. Suuqyada shaqada ma naxariistaan ee waxay u baahan yihiin xirfado cusub iyo macluumaad dheeri ah. Haddii aadan ahayn qof si joogta ah isu horumariya, tartanka shaqada waad ka haraysaa wayna kugu adkaanaysaa inaad la qabsatid shaqada. Culeysyada nolosha soo wajahay way badan yihiin. Sidaa daraaddeed waxaad u baahan tahay inaad mar kasta baartid tobaha iyo sidii ula dhaqmi lahayd ama aad ugu gudbi lahayd culeysyadaas ka jira. Tiirarka ay ku taagan tahay is-horumarintu wax kasta sal iyo aasaas ay leeyihiin. Haddaba halkan waxaan si kooban kugu sharxi doonaa 5 tiir ay is-horumarintu ku taagan tahay. Ku soo dhawaada muuqaalkeenna maanta. Nambarka koowaad ama qodobka koowaad ay ku taagan tahay is-horumarintu waa inuu qofkii is yaqaanaa. Waa inaad istaqaanaa qofka aad tahay. Waa inaad isweydiisaa kumaan ahay. Maxay tahay awooddayda ama xirfadda aan leeyahay? Haddii uusan qofka su'aalahaasi jawaab rasmi ah u helin, way ku adkaan doontaa inuu is-horumariyo. Qodobka koowaad ay ku taagan tahay is-horumarintu waa inuu qofka isaga isgarto oo isweydiiyo waxa uu ku fiican yahay iyo waxa uu damacsan yahay. Nambarka labaad ama qodobka labaad ay ku taagan tahay is-horumarintu waa inay ku caddahay waxa aad ka damacsan tahay noloshaada. Waxaa loola jeedaa qofku waa inuu leeyahay qoraal cad oo u caddaynaya hadafkiisa uu ka leeyahay nolosha, hadafkiisa dhow ama kiisa fog. Hadafka fog waxaa loo yaqaanaa waa kuwa lagu higsan karo muddo badan, sida inaad ku qaadato digrii jaamacadeed iyo wixii la mid ah. Hadafyada dhowina waa kuwa laga higsan karo sannad iyo wax ka yar. Waxa aynu u adeegsanaa inaan ku gaarno hadafyadeena waaweyn, sida inaan barano luuqad cusub iyo wixii la mid ah. Taas micnaheedu waa inuu qofka leeyahay meel uu ka duulayo, og yahayna meesha uu u socdo. Laakiin haddii uusan qofka aqoonin meesha uu hadda joogayo meesha uu u socdo, waxaa cad inuu ku fashilmayo is-horumarinta. Nambarka saddexaad ama qodobka saddexaad ay ku taagan tahay is-horumarintu waa inaad taqaanid waxa aad ka rabtid ama aad ka damacsan tahay nafsadaada iyo tan dadka kaleba. Aadna ka dhaadhicin kartid waxa aad damacsan tahay, weydiin kartidna waxa aadan fahmin, adigoo adeegsanaya qaabka iyo sida ugu wacan ee lagula xiriiro dadka kale. Haddaba waxaa lama huraan ah inaad horumarisid xirfadaada kaa kaalmaynaysa xiriirka iyo bulshinimada, isla markaana aad ogaatid inay lama huraan tahay inaad xiriir fiican la yeelatid dadka kale. Ogowna waxa kula saxan qof kale ayay la qaldanaan karaan. Tusaale ahaan, 20 qof haddii aad weydiisid maxaa la dhahaa guul, mid kastaba si ayuu kugu sheegayaa, taas oo ah sida uu u arko guusha micnaheeda. Sidaa darteed waa inaad taqaanaa sida aad ula dhaqmi lahayd naftaada iyo tan dadka kaleba. Nambarka afaraad ama qodobka afaraad ay ku taagan tahay is-horumarintu waa inaad leedahay xirfad aad kaga faa'iidaysan kartid hantidaada. Waxaa loola jeedaa inaad leedahay hanti aad ugu maarmi kartid inaad dadka kale wax weydiisatid. Soomaalidu waxay tiraahdaa bugtada badan iyo baryada badan waa la isku nacaa. Taasi waxay kugu dhiirigelinaysaa inaad abuuratid ilo dhaqaaleed. Maxaa yeelay haddii aadan haysan lacag aad isku horumarisid ama aad isku maalgelisid, horumarintu way adkaanaysaa inay noqoto sidii laga rabay. Nambarka shanaad ee ugu dambeeya ama qodobka shanaad ay ku taagan tahay is-horumarintu waa inaad leedahay xirfad aad wax ku baari kartid. Tani waxay tilmaamaysaa awoodda aad u leedahay inaad si fudud ama si dhaqsi leh aad ku heli kartid kuna kobcin kartid macluumaadka iyo cilmigaba, adigoo adeegsanaya marba xirfadda aad u baahan tahay ee kaa kaalmaynaysa waxa aad u baahan tahay. Tusaale ahaan, maanta oo caalamku noqday tuulo oo kale ama waxa loo yaqaan global village oo macluumaad kasta aad ku heli kartid muddo kooban. Bal ka waran haddii aadan aqoonin sida loo adeegsado internetka. Sidaa darteed waa inaad abuurataa ama aad kordhisaa xirfadda kugu saacidaysa kororsiga cilmiga ama macluumaadka aad u baahan tahay. 5 tiir aan soo sheegay ayaa ah jiridka ay ku taagan tahay is-horumarinta, la'aantooduna ay adag tahay inuu qofka is horumariyo.